ninka la yiraahdo Cadda Gude iyo tiimkiisa waxaan leeyahay u sheergareeya oo daaqada uga geliya oo taariikhdan iyo dhacdadan soo jireenka ee Sheekh Isxaaq u dhadhow yahay ay doonaa beelaha kale ee Soomaaliyeed inay ogaadaan deetankii iyo steetinkii waxaa dhacday arrin aad iyo aad u cajiib ah oo laga yaabo inaanay beelaha Soomaaliyeed aanay war badan ka qabin ay warmoog ka yihiin oo aanay ogeyn baa laga yaabaa miyaa la socotaan in reer Sheekh Isxaaq qayb ka midii ay la socdeen dawladdii Soomaaliya bise la socotaan in dadkii qaxoontiga ahaa ee beelaha Isaaq ee ka cararayay duqeyntii iyo dhibaatayntii loo geystay waxa weeye beelaha Isaaq iyo xasuuqii ku socday ka yaacay in beela kamida beelaha Isaaq ay dhaceen oo jidgooyo u galeen oo hantidoodii qaateen waa wixii yaraa ay kala soo carareen magaalooyinka Erigaabo Burco Berbera Hargeysa wala socotaan waqtiisa taariikhdaasi inay tahay mid laga wada og yahay guryaha beelaha reer Sheekh Isxaaq ma la socotaa waqti ni arrintaas jirtay laakiin markay isaga dhexdiisa la joogo hoos loo dhigo waqtigan oo aan kor loo qaadin maadaama ujeedadii iyo hadafkii lahaa laga gaaray halkankii Cabdiraxmaan oo ku salaamaya haddii aad lixle iyo harig waafi aad sheegayso waa laba nin way afar nin shan baa uga dhig laakiin hal maalin iyo hal deegaan oo ay deegaan ay leeyihiin ay ka dagaalameen oo ay kaligood dagaalameen haddaad ii keento doodoo ku soo qabanaya halkaas ka soo qabanaya dabeetana waad igala doodi karaysaa aw waxaynu ka hadlaynaa mahafaan maaha propaganda iyo been maaha wax cid gaar ah jeceshay aan waxaan jecelahay idii sheegi maayo waxaan jecelahay ma idii sheegayo waxaan necebahayna macna badan bay idii sameeyay inaan idii sheego laakiin waxaan idii sheegayaa waa dhacdo iyo taariikh jirta oo dhab ah dagaalkii lala galay Maxamed Siyaad Barre beelaha Isaaq ma aysan wada gelin wala taawgataan wala xaqiiq waa dhab weey waliba waxa inta dheer beelaha Isaaq beela kamid inay hagardaamaba u geysteen oo maatidii iyo maxastii beelaha Isaaq ee ka cararayay ciidamadii xoog dalka Soomaaliyeed dhibaatadii ay ka wadeen iyo beel gaar ku riixay laakiin waa taariikh jirta weey oo dhab ah oo guryaha Isaaq nin wal oo weyn oo mudakkara oo reer Sheekh Isxaaq ama meeshu dooriyo digaag ku jooga waxa joogo gudaha jooga dibadda waxa joogay waa og yahay taariikhda dhacday ee la isla wada ogaa iyo arrintaasi sidii ay u dhacday iyo goobihii ay ka dhacday iyo deegaamadii iyo cidii waxa samaysay aloodogi maanta today waaynu taaganahay waxa ogtihiin in la isku hayo oo dagaal ka socdo deegaanada Soomaaliland kamida oo ay jirto arrin la isku hayo oo ah Soomaaliland waa jiraysa iyo jirmayso la isku hayo labada mistaha meesha ku jirto deegaan walba Ilaahay dad buu badiyay dawlad deegaanka Soomaalida jufooyinka marka laga hadlayo meesha wada degan dirbaa u badan laakiin deegaanaha jufooyinka marka la qaybiyo ogaadeen baa meeshaas waxa weeye hogaamiya xaqna waa u leeyihiin inay hogaamiya laakiin haddii qabaayil la yiraahdo dirbaa ugu badan oo hogaamisa ay ahayd laakiin maadaama dawlad federaal iyo systemkaas tahay waa garan karaynaa deegaanada Soomaalida ee kale beelweynta hawiye ayaa koonfurta ugu badan xaq bay u leedahay in la leeyahay deegaanka Somaliland waxa ugu badan beelaha reer Sheekh Isxaaq xaq bay u leeyihiin inay hogaamiyaan oo ay talada gacanta ku hayaan laakiin marmarsiyo iyo qiiqisku qarin baa hadeer waxa loo yiri oo dagaalkaas loo bilaabay ma Somaliland Isaaq laakiin Isaaq laftiisa waxa isku hayaan hadeer Somaliland waa jiraysa ay jirmayso qayb kamidii kuma jirto oo qayb kama aha af adin dhaqaale ilaa wax yar mooyaane hadeega ee difaacitaanka magaca iyo jiritaanka qaranka Somaliland sidaas la mid ah ayaa jirtay markii halgankii lagu jiray Maxamed Siyaad Barre dalkan laga qabay waxa doonayaa inaan marxaati u soo qabto abwaan
كم إذا أوانada Soomaalida oo isagu arintaasi goob joog ah maaha anigu waxa idin leeyahay oo arag weerar maaha arin aan dhinac kale u riixaya ama cid kale ku fogeynayo marka waxa doonaya bal hadayna dhisada ila dhigeysitaan ka gadaalla awee inaga lafteedu aynu falanqeyno oo hayska weydiino haddana waxa ogtihiin baraha bulshada cidda dagaalka adag إنه يسيني وابن يسيني ريشخ سحاق شيغانيسا هادنا الدقال كل جرته ريشخ سحاق يا سوماليلاند وعد غدي يا فامليز وعد غدي يا ديغانكيس ولا تاويتان لكن arrintan waxay salka ku haysaa oo ay u noqonaysaa uun 1980 markay reeshah saaq dagaalka ku jireen tusaale yaraadisiin waan doonayaa in taariikhda ku lalataan saraakiishii ugu horeysay ee ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed kamid ahaa ee magaca ku lahaa ee ugu horeeyay ee baxa saddex nin bay ahaayeen wala socotaan Axmed Dhagax iyo Maxamed Kaahi afartaas ahaay saddexdaas ahaay ka gadaal waxa ku soo biiray nikale oo isna deegaanka beesha habar jecel ka soo jeeda oo markii dambe afar ku noqday xaqiiq weey waa afartii nin ugu horeeyay waxa kale oo ku darsanaysaa taariikhda jabhadii ugu horeysay ee la dagaalameysay Maxamed Siyaad Barre ee isaaqiyasho cidii ku dhawaaqday gudoomiyada ka noqotay waxay ahayd beesha Habarow cidii ku dhawaaqday ee arintaasi dhaqaajisayna waxay ahayd Habarow way tukaan nikiile baa de furiheeda leh adoo fiirsada laakiin dhinaca kale hadeer ka gadaal cid ka timid baa boomboolin iyo propaganda maaragtay suuqa gashatay yaasis boombooliyo oo u dooda oo kuwa ay ku jiraan isaga nacaybka doonaya dadka iyagu ay isleeyihiin humbaad isaga soo dhawaan kartaan dhinaca saaraya baarintaasi inta badan dhageysta oo soo dhaweeya oo yiraahdo ha idinka weey ku soo dhawaado qisadan ila dhageysta diilayna walaga yaabaa dadka qaar in la yaabihiin cadda gude oo le walaalayaal ilmaade rayaal aynu la dagaalano ehelu naar ehelu janno wax ka sheekeynaya oo cadaawad iyo naxli umada la wadaagaya iyadoo inuu ognahay waxa la isku hayaa inay tahay isaaq sidoo hogaami kara deegaan ay ugu ballaaran yihiin oo ay dawlad noqon kartaa in la isku hayo sidee isaaq u iman kartaa nidaam iyo system dawli ah oo iyagu ay majaraha u hayaan iyadoo halka laga dagaalamayo wala laga yaabaa in dadka qaar isweydiiyaan maxaa cadda gude ka yeedsiiyay inuu yiraahdo wax weeye kuwii iyagu la dagaalamayay aragtidaas intuu garab istaago inuu yiraahdo inaynu wada dumino ehelo naar aynkan dagaal nala gala dumaaka garaaw ila aragtaa baraha bulshada qaarkood oo ka bombooneenaya oo la tiim ah oo la aragtiya ama ka yimid guriga cadda gude ama wax way garan naarta laga yaabaa inaad isweydiisaan laakiin taariikhdu waa isku xirmaysaa waxa ogaataan isla markii aynu halganka ku jiray in ay jireen oo ay qayb ka ahaayeen dagaalkii Maxamed Siyaad Barre inaga lafteena inuu jiray magaalada Hargeysa la yiraahdo ee caasimadda ah ee isaaq ugu badnaa ee dagaalkii ugu badnaa uu ka dhacay hal guuto iyo hal ciidan oo ma balahayn hal guuto iyo laba guuto soo hal guuto ma lahayn deegaankooda ku aadi lahayn watii la waayay maalintii dalkan iyo magaalada Hargeysa la soo galay halaga yaabaa inay yiraahdaan nin odayo oo Ilaahay u naxariistay ay sheegtaan waa ciidan gal reerka la yiraahdo oo dhan weey ciidan gal ka hadlay hal nin bay sheegtaa koodbur la yiraahdo koodburna waxa weeye meel ka dagaalamay deena garan mayno markii dambe meel halkaas ku dhintay oo deegaanka Soomaalida laakiin maalintii dalka la soo galayay dagaalkaas meel ku maqlaayeen iyaga ayaa ka jawaabi doona kullu way daawanayaan sida hadeer ay daacad uga yihiin difaacitaanka magaca iyo sharafta iyo karaamada beelaha reer Sheekh Saad beelaha Habarawal Arab iyo Habar Jaro ay daacad ka yihiin ba dagaalkii Maxamed Siyaad Barre loo galay ay daacad u ahaayeen sidayna waa ka daacad weey inta ka soo horjeedana waa isla garan karaynaa oo waa fahmi karaysaa maanta qisadii la dhigeysta